anigana kuma faraxsani adigana kuma faraxsani balse xaqiiqdu waxay tahay ciidankii Soomaaliyeed way jabeen dhalinyaradana arkaysaan ee dhammaantood madaxooda hoos jiro waa ciidamadii shalay laga qabtay Raas Kambooni ciidankani waxay gacanta ugu jiraan maamul goboleedka Jubbaland iyo ciidanka Abris ciidankaasu ceeb darteed xitaa madaxa kor uma qaadi karaan waa adiga arkaa madaxoodu inuu hoos wada jiro guuldarrada ku dhacday dowladda federaalka iyo ciidankeeda mid ay weligood ka soo kubsan doonto xitaa ma noqon doonto dowladdu intay ka fikiri lahayd ciidankaasi sidee loo soo badbaadiyaa bay weli warqad dheer intay soo qorto social media iska soo dhigaysaa ayadoo leh annagoo ka duulayna inay dhalinyarada Soomaaliyeed isbaabi'iyaan baa waxaa garowsanay inay ciidanka dowladda ee Raas Kambooni joogo dib u gurasho sameeyaan maxaa dib u gurasho ku dhawaad 100 qof oo maxaabiista laga hayaa ku dhawaad 20 tiknik waa laga qabsaday gaarigaas arkaysaan 3 maalin ka hor baa la geeyay Raas Kambooni maanta ciidanka Jubbaland haysta حتى يدي بكرشة مركز ميسين تنوع يدي بقول عادي ما أنا كده على كرتان عيبتان عيب يدي بقول عادي وحمسي حسنو كليه أنا واحد يفرن هنا ده أحمد مدوي أنت أو تكتار أرن كاس كلا هذا الشاب إذا ما فرن ولي إن أسأت كيسان أسأت كينتينو وحكت دريمية إن عرفتان مركزته إن الدجال قدر وويل Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed baabiisan balse cawaaqib xumadii ka dhashay dagaal dambo qaata adii ka hooyo aabidina Islaam ya dhalinyaro